sagaan ila dhageys gabadhan waxa la dhahaa Caroline anigana waa bitaqaaniin basada la dhahaa gabadhan waxay iimaatay sanad ka hor waxa la igu keenay inay ii shaqeysay caawiso sanadkii 3 bil kadib waxaan dhahay iskuulaadkii la furay waa 17 jir ay ahayd waxaan ku yiri hayes ma saaxiibay iskuulaadkii la furay iskuulaadka ma adeegsa waxay igu jawaabtay may inaan ku soo shaqeeyo u baahanahay waxaan ku iri sabab waxay tir hooyada way dhimatay mana awoodo mana haayo qof iskuulka iga sii bixiyo go'aan waxa qaatay in iskuulka ka bixiyo ee ani ila noolaato ee gabadheeda noqoto waxa gii iskuul islaamik senior 2 ay ahayd qofkii senior 2 waa adii fasalka labaad ee dugsiga sare ahayd hata waxay tahay waa fasalka saddexaad ee dugsiga sare ugu dambeyn habeen hore anoo hurdaayay sariirta korkeeda iigu imaatay waxay ii sheegtay in ay rabto in ay noqoto qof muslim saaka anoo faraxsana gacanta ka soo qabtay waxaan dhahay alxamdulillah ala kulli xaal uligay diinta kuma qasbin diinta islaamka intay la joogtay idan go'aansatay inay diinta islaamka qaadato alxamdulillah ala kulli xaal hatta waxaan u wadaa masaajidka tawxiid EJT waxaan u wadaa masaajidka tawxiid waxaan rabaa in diinta loo fasiro ashahaadiinka ee soo qirato ay noqoto gabar walaashay ama gabadheedo kale waa imaan masaajidka tawxiid by the way ugu dambeyn qof Soomaali waa fiirinay waa waynina helnay madow oo sheekh yaadan sheekh oo kale gabadhan diinta u fasir gabadhiyo diinta u fasirooya waa kaas ugu dambeyn ma lagu qasbay diinta waa may maxaa ku doorsatay halday marka waxay tiri nafsadeyda waxa ay sheegtay diinta rasmiga inay tahay diinta muslimka go'aanna waxa qaatay in islaam ashahaatinkiya sida loogu qabtay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ugu dambeyn Caroline waxay isku bedeshay Aisha saacan waxay ka dambeeyay Aisha la dhahaa ma fahanteen alxamdulillah ala kulli xaal sheeqi wana caawiyay waa soo baxnaana ko faraxsan saaca laga bilowdo xaq kale ay u lahaatay Soomaaliya waxa igu soo duceysiin Ilaahay gabadhaas inuu ila karab kale waxa rabaa ilaa jaamacad in aan ka bixiyo ee noqoto gabadheedo kale qof walba habeysiino saa ugu dambeyn nafsadeena casuunay inta talbanay intadeena cunuuna waa ka saahe alxamdulillah ala kulli xaal aninkana noo soo duceeyay iyadana Ilaahay diinta inuu ku adkeeyo ee noqoto qof mustaqbalka diinta islaamka faafiso anigana insha Allah waxa rabaa mustaqbalka inaan meel diin iyo jaamacad iyo waxbarasho iimaadiba inaan ka dhiso inta aniga waxaysta waay hada wax waayeen alxamdulillah